wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Ibrahim Selef oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu beeniyay in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay laaluush ku bixinayso sidii ay u kasban lahayd mudanayaasha golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhawaan la doortay si ay ugu guuleystaan shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland waxaan uu beeniyay arrintaasi isagoo sheegay in aanay waxba ka jirin geesta kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu taa bedelkeeda uu xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ku eedeeyay in iyagu dhaqaale u qaybinayaan xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka sidoo kalena waxa uu soo bandhigay cadeymaha ay arrimahaasi u hayaan ka xukuumad ahaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhaqan iyo caado iyo curfi toona aanay u lahayn inay bixiso laaluush codka dadkana ay ku baayacdo laaluush laakiinse waxa dawladda Muuse Biixi ay caan ku tahay ilaalinta sharciga ilaalinta xoolaha ummadda ilaalinta maxaan ku raadayay wixii maxaan ku raadayay dawladnimada saadarteed waxaan maqlay qolooyin ku doodaya in ku cabanayo waa lana baayacay waxa la yaab leh in doorasho dalka ka dhacday runtii doorashada dalka ka dhacday runtii doorasho aad u qurux badan oo qiimo leh oo doorasho Soomaaliland ka dhacday tii ugu quruxda badnayd ee ugu qaylada yarayd ee ugu buuqa yarayd ee ugu maxaan ku raadayay wanaagsaneyd bay runtii ahayd taana waxa hirgelinteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta ka bacdina waxa legasigeeda iyo sharafteeda iyo hirgelinteeda iyo fulinteeda runtii iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ay ku qaadatay waliba 3 sanadood madaxweynuhu sanadkii koowaad ee uu madaxweynaha noqday way ka goonay dalka in la qabto doorasho 3 sanadood waxay ku qaadatay dhowr iyo dheeraadkaas waxay ku qaadatay inuu ku qanciyo mucaaradka in dalka doorasho ka dhaco waxaan naxdin hadda walaah isagoo waxa soo tanaasulaada iyo waxa soo maxaan ku raahdaa u sameeyay xisbiyada mucaaradka oo doorashada inuu dalka ku qabto wax walba isagoo ugu dulqaatay oo dushiisa iyo dulqaadkiisa runtii ay doorashadaas maanta ku dhacday isaguna uu mas'uuliyadda qaaday amniga iyo maxaan ku raahdaa doorashadaas inay si amniga u dhacdo iyo in kharashka doorashada ku baxay 80% ku dhow ay bixiso dawladdu si haddaba doorashada loo masaxo oo legasiga madaxweynaha iyo sharafta madaxweynaha uu ku leeyahay doorashada ku helay loo baabiyo ayaa waxaan dood jilicsan oo meel gaarsiisnayn oo maxaan ku raadayay dhaqan dawladda madaxweyne Muuse Biixi hogaaminay looga bartay ay lagu eedeynaya inay dawladdu wado waxa meel ay dawladdu ku soo hadal qaaday ku bixinaysa laaluushna ma jiro meel ay dawladdu maxaan ku raadayay ku baayacdayna ma jirto xisbiga kulmiyo uu wada golaha oday weyn oo rogcadaaya oo siyaasiya oo Soomaaliland soddonkaas inay jirtay soddonka waa tacab iyo arrin la barbar taagnaa oo madaxweynuhu habeenkii dhawtole markuu shamaantii dhawtole markuu la shaqulmay xildhibaanada uu sheegay inuu halbadarka Soomaaliland yahay waxaan filayaa qolada mucaaradku waxay hayn waayeen oo ay xijin waayeen ninka odayga ee tartanka ku jira ee madaxweynuhu wado ee xisbigu wado saadarteed waxa anaga hela tahay waxay ku cataabayaan oo ay arinta dooda jilicsan ee barkumataalka ee aanay dawladdu wadin inaanay ka filin guul golaha dhexdiisa waliba waxaan aad u dhageysanayn in masaajidka kacay masaajidka ahaa ka wacdiyay dadka oo jimciye shalay ka galay khudbad walow uu cod ku helo oo kaambiin badan ka galay masaajidada waxaan u sheegaynaa inuu ka soo inuu xildhibaan yahay xildhibaankuna siyaasadda leeysan u haysto taadar shirka jaraydka layo qiimka iyo cibaadada iyo masaajidada kala saar iyo waxaad ku hadlayso haddii cid wacdiyeysana waxa wacdi kaaga baahan oo waana kaaga baahan hogaamiyaasha mucaaradka inta xalay guryaha isku xareysteen ku qaybinayay labada kuna rag waaweyn ku diideen kuwaas waana u baahan dawladdu program qof bay iibinaysaa qofkaasay wadaa kaasay ku rabtaa in cod lagu siiyo laaluushna kuma rabto xoolana kuma rabto wala iswada ogyahay xalay ragii diiday ragii qaatay labadaba waa la ogyahay laakiin anaga hadii cadeymo ku hayaan cid la siiyay cid baayacday way sheegi lahayd laakiin deynif la gowracageeda kama waabtay cabsida hajiyaano golaha yimaadaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudane Muuse Ibrahim Selef ayaa waxa uu waxba kuma jiraan ku tilmaamay eedeymo uga yimi xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xoghayaha guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani intii waan dhageystay saaka eedaasi kama duureyn kuwii caadiga ah ee uu la bartay inuu ku aflagaadeeyo madaxda qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyo iyo qarannimada Soomaaliland labada kama duuneyn runtii doodiisa dood jilicsan bay ahayd waxa iskaga khaldan doorashadii imika la galay in lagu galay program xisbi iyo manifesto xisbi markii lagu tartamay programka xisbiga ee manifestada oo kii shacbigu harcad kulmiye doortay intii uu ka sareeyay ilaahay ogaa ee ummaduna marxatiga ka ahay
laakiinse waxa la yaab leh inuu iskaga khaldan tahay maanta in ashqaas tartamaysay ashqaas baa tartamaysay waliba wax lagu tartamayay waa taaweedeen constituency baa lagu tartamayay deegaanaha lagu tartamayay dee anagu waa aragno in laga guuleystay waxaan u aragnaa in Soomaaliland guuleystay in qaranimada guuleystay laakiin waxa la yaab leh in madaxweynuhu hadduu doonayo inuu farageliyo doorashada dee kamay muuqatay natiijadu maanta haddii uu raggii ka soo baxay xisbiga u baqayo uu yiri malaade odagay raaci dee inuu waxa ku hadlo runtii loogama fadhiin isagaa eedo badan dul hogaynayaano dee looga cabanayo la leeyahay narkay dad badan oo ka cabanayo le waxba uu farfareeyay baasha isagu eedaha meel saaran meel iska dhigo